wararka ka imanaya bariga dhexe gaar ahaan caasimadda Sacuudi Arabiya ee Riyadh ayaa sheegay in dawladda Mareykanku gebi ahaanba ay halkaasi kala baxday hubkeedii gantaalaha loo yaqaan Patriot iyo guud ahaanba hanaankii difaaca ee ugu tala gashay markii hore in laga difaaco gantaalaha uga imanaya Jamhuuriyadda Iran war qoraal oo ay soo saartay dawladda Mareykanku balse si hoos ahaan u soo baxay oo ay soo xigatay warbaahinta la yiraahdo Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in marka la eego istiraatiijiyadda Mareykanku uu ka leeyahay gobolka bariga dhexe aanay waqti xaadirkan Jamhuuriyadda Iran khatar ku ahayn boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo guud ahaanba gobolka taasina waxay kasabtay in Mareykanku daabulo hubkii Patriot missileska ahaa ee ku gadaana xarumaha saliidda laga soo saaray ee waaweyn ee Abqaiq iyo Khubus tan ayaa talaabo aan ka farxinaynin boqortooyada Sacuudi Arabiya isla markaasina dhinaca kale waa mid ay u riyaaqayaan Jamhuuriyadda Iran iyo kacaanka Islaamiga ee dalkaasi waayo Mareykanka ayaa baryahan bay soo arkayay inuu yahay ka qura ee difaaca boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo danaheeda marka loo eego shidaalka xarumaha ay ku tahay magaranaysa qaniga iyo goobaha kale istiraatiijiyadda wadankaasi dalka Mareykanka ayaa imika waxa la isweydiinayaa arinta keentay inuu ka daabusho gantaalihiisa Patriot isla markaasina uu yareeyo diyaaradaha qaada gantaalaha nuclearka iyo gantaalaha kale ee loo yaqaan intercontinental missiles ee soo gudba qaarada ee B52 suxufiyiin wararka Oodweyne Media Hargeysa wararka ka imanaya bariga dhexe gaar ahaan caasimadda Sacuudi Arabiya ee Riyadh ayaa sheegay in dawladda Mareykanku gebi ahaanba ay halkaasi kala baxday hubkeedii gantaalaha loo yaqaan Patriot iyo guud ahaanba hanaankii difaaca ee ugu tala gashay markii hore in laga difaaco gantaalaha uga imanaya Jamhuuriyadda Iran war qoraal oo ay soo saartay dawladda Mareykanku balse si hoos ahaan u soo baxay oo ay soo xigatay warbaahinta la yiraahdo Wall Street Journal ayaa lagu